beesha jidla ayaa deeq ka kooban geel iyo raashin waxay ku wareejiyeen beesha xawaadle kuwaas oo loogu talagalay tacsida. Allah u naxariistay ugaas xasan ugaas khaliif oo dhawaan geeriyooday. odayaashii waxgaradka beesha jidla ee deeqdan ka kooban xoolaha iyo raashin ku wareejiyay beesha xawaadle ayaa ka tacsiyay geeridii ku timid. Allah u naxariistay ugaas xasan ugaas khaliif inaga wada dhintay maanta ilaahay ku maqaadaatay duugtiisa aan ka soo wada qayb galno yaan u nimid kullayba waxaan u malaynaa jidla iyo xawaadle isku sheeg ma kala sheeg ma laha sababtoo ah hadda ka hor ugaasyo ay ka ballameen burdhayn la wixii ka xageeyo ugaaska jidla inuu ugaaska wada yahay burdhayn la wixii ka sokeeyo ugaaska xawaadle ugaaska wada yahay taariikhdaas mid hore soo jireen waaye ayadii aan dabada haynaa waa naga wada dhintay inaan wada duubanno waa wada duubannay waa dhintay inaan wada duuganno yay ballanta tahay hadda walaalayaal duug hadda weynoon wadna male laakiin wax walba magaca ka fiican xoolan wadnaa aan badnayn laakiin madaxayna iyo qabiilnimadan ku kabayna oo yaani ma artay hadda ka hor ugaaskii ugaas cali oo dhintay waxaan u malaynayaa xawaadle wuxuu keenay iyo sharafta uu ku keenay waan ognahay mustaxiil markii lagu duubay waxa waaye ugaas cabdiraxmaan markii uu dhintay duugtiisa iyo hawshiisii daaro ugaasaan tagnay yaani saasaan ugu qayb galnay ugaaskaan dhintay oo hadda noogu dambeeyay oo tacsadiisa meeshaan aan nahay waxaan u malaynayaa duubkiisii waa ka soo qayb galnay oo si fiican ay noogu dhammaatay ugaas aan wada duubanno waxa haddaana ugaaska aan wada duubannay oo jidle iyo xawaadle ka dhaxeeyey oo aan ognahay oo nin qaali ah aan meeshaan u nimid magacayga waxa waaye Faarax Xasan Maxamed oo ku magac dheer Faarax Xasan Yare meeshaan inna lillahi wa inna ilayhi salaan ka bacdi meeshaan waxaan iskugu nimid tacsiyaan iskugu nimid ugaaskanaga oo geeriyooday ugaasku naga dhaxay ugaaskanaga oo geeriyooday tacsiyadiisana iskugu nimid naxariista janna Allah ka waraabiyo dambigiisa Allah dhaafo kitaabkiisa midigta Allah ka siiyo annaguna gadaashiis ilaahayna ma fidneeyo annaguna gadaashiis gadaashiis ma fidneeyo mid ka dambeeyo oo barwaaqo sooran oo nabad ku waaro oo mataqaanaa bashbash iyo caaniyo barwaaqo lagu gaarana Allahna siiyo waa noo joogaa Allahna siiyo amiin wa salaatu wa salaam ala rasuulillah ama bacdu walaalayaal maanta meeshan waxaan isugu nimid tacsidii walaalkeen ama ugaaskii beelahawiye ugaaskii aan leenahay reer hiiraan waa ninkii ugu madaxweynaa Allah u naxariiso tacsidii baan u nimid oo aan ka soo qayb galnay annagoo ah magacii jidle beesha jidle gugun dhabe hawiye qaar ka mid ah odayaasha beesha xawaadle ayaa u mahadceliyay beesha jidle bacdu salaam Soomaalidu waxay tiraa gacantii gogeeda sababtaa amaan kuma ahay lidku abaani mana lidku abaalinayo waxa dhintay waa ugaaskeenni waa walaalkiin waa ugaas Soomaaliyeed waa ugaas reer hiiraan gaar ahaan jidle iyo annaga wixii naga dhaxay wax cad waaye fagaaraha la keenay horeyna fagaaraha loo keenay jiray waa idin soo dhaweynayna walaalaha inuu tacsidaa keenteenna waa idin ka gudoonay jidla waa dada beerta suuqaan sama xaraho suuqayna xeerayeen oo daaqsanta suuqaynata gugundhaba wuxuu dhalay jidle iyo jibide jibide waxa la yiraahdaa baadcadii jejeele jidlana laba u dhalay labada u dhalay marka dadku uma yaqaan hadda murule waa jidle dadaan laga dhaadhici kar oo aan u aqooninba waa qabiil meel walba jir shanta qabiil oo kabaanada lagu goosto Kenya looga goosto ayuu lambarka labaad oo uga jira xawahay murul uga jira murulaha waa jidle hadda hadii dadkan laga dhaadhiciyo maqlimaha waa idin naqaan nima taariikh leh asali reer hiiraan hay macnaha deegaankoodu hay Itoobiya jiro Kenya jiro waaye waxaad keenteen wax ka badan adika ilaadii ku bedelo ka ugaas khaliif ugaas xasan ugaas warfaa beesha jidle oo dhaqan soo jireen aan lahayn ayaa waxay keeneen geel iyo gaari raashina geelaas iyo gaariga raashinkaana waa la wareegnay waxaan leenahay jazakallahu khayr ilaahay wax khayr qaba idinka gaarsiiyo dadka jidlaale marka in ad walaalnimo iyo qaymo weyn iyo kalgacayl aad noogu fadhidiin geela gadaashayna tuurina keenay
waxaan isku nahay samarqaati ka ah waxaan isku nahay cid la weydiin ma samarqaati ka waa idin salaamaynaa waa idin soo dhawaynaynaa khayr Allah idin siyaan leenahay sadaqa aad la baxaysaan waalidiintina la ka sabab amiin annagana kuwii isduugo oo isdar yeela oo iska warqaba Allah naga dhigo waxaad u qabtaa wixii ugaasidii hore ay dhigeen yaran inay balaabeen wadadii waxa ka baxay cagaarkaan ka falnaan leeyahay cagaarkaan ka falno aan kala warqabno dadkaan isaga sokayno xoolo weynaad keenteen ilaahay baa weyn oo aad u tiro badan oo qiimo badan oo geela meesha jooga waa 9 neef oo magaca jidle ku yimid 9 neef iyo raashin waa maxamed cabdulqaadir Soomaali Cable TV Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxa kamid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier